الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله سينو أكسون هاي وحي نو سودو نبات الله نو قرسية بشي رمضان المبارك. جمعها جمعيه سكوحيقا أما واكو أما واللبا وحمركا أينو isku baraarujinayna bishan sida aynu ku qaabili lahayn in ugu diyaar garoobi lahayn. Waxaan dul mari doonaa insha Allah 20 arrimood oo shareecadeenu ina fartay bisha ka hor inaynu ku diyaar garowno. Ilaa wixii miisaan le mugle marka aad danaynayso diyaar garow la'aantii kuma yimaado. Waa inaad u diyaar garowdaa. Hadduu waftu ku imanayo, haddii carwo iyo dhaqaale aad ka faa'iidaysanayso, qofku diyaar garow badan buu sameeyaa iyo hadday safar tahayba. Marka diyaar garowga ramadaanka waxa ka niyatul khaalis inaynu niyad wanaagsan ku qaabilo iimaana wa ihtisaaban inaga oo u diyaara inaynu bisha go'aanay naga tahay inuu qofku soomo ilaahayna ajrigu kaga doonayo subxaanahu wa ta'aala ku raali gelinayo. waxa kamid ah inaynu ilaahay barino inuu inagu garab galo. qofku awood kastaba ha lahaado haddaanu ilaahay garab galin subxaanahu wa ta'aala cibaadada dee shaydaanka ka faa'iidaysanaya. ilaahay markaynu barayna waxaan leenahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahay wadaan ku caabudayna gargaarna waa ku weydiisanayna suuratul faatiha. marka cibaadadii iyo isticaanadii gargaarkii ilaahay la gargaarsanayay ayaa isbarbar yaala. bishan waxyaabaha u waaweyn inuu ilaahay ka doonayna waxa kamid ah inuu ina cafiyo. alaa tuxibuuna an yaghfira allahu lakum. marka inaguna waa inaynu iscafinaa ramadaan ka hor. dadkeena wax dhex yaalaan iskhilaafay cuqdada isu haya waa in la iscafiyaa oo la issaamaxaa. ilaahay wuxuu leeyahay dadka cafiya miidaan idinku jeclayn inuu ilaahay idin cafiyo. markaad doonayso ilaahay inuu idinku cafiyo adiguna addoomaha cafi. waxaa ka mid ah towbad wanaagsan oo miyir qabta. waxaa ka mid ah tacallum axkaami ramadaan. bisha ramadaan axkaamteeda inaynu baranno, fadligeeda, waxay ku ansaxdo, waxay ku burto intaanay weli bilaabmin ee aan qaybi kaa khasaaroobin. cajaladaha iyo kutubta iyo muxaadaraadka iyo cilmiga ramadaan sii baro, waayo cibaadadu kama soo hadha cilmiga. marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay qofka muslimka ah dadweynahan in lagu wacyigeliyo cilmiga ramadaan. marka dadku ay cilmiga bartaan ansixidii bay u dhawaanayaan, su'aalihii baa yaraanaya, qofku shakigii baa ka baxaya. waxaynu badinaynaa bishan iyada ah waalidka inaynu isagana cafis weydiisano, inuu samafallo ciddii waalidkiisu noolyahay iyo ciddii uu dhintayba. oo waalidku samafal buu leeyahay intii uu dhintay kadib, ama ha loo duceeyo oo sadaqaha loo bixiyo ama dardaarankiisii ha la fuliyo. siyaabo badan baa loogu samafalaa waalidku intii uu adduunka ka tag u geeriyooday kadib. waxaynu ku dadaalaynaa oo diyaargarowga ka mid a raddu lxuquuqi ilaa asxaabiha min duyuunin wa ammaanaat. qofku ciddii uu wax ka hayay inuu u celiyo waxoodii, dayntii iyo xaqii lagu lahaa iyo wixii uu dad ka qaatay. waxaa ka mid a waxyaabaha aynu ku diyaar garoobayna musaaxabatu alakhyaar aladiina yuciinuuna cala alcamali asaalix. dadka wanaagsan inaynu ka ag dhowaano oo markaad doonayso shay inaad qabato si fiican u qabato, dadka si fiican u sugayaa lala saaxiibaa. markaa saaxiibkii xumaad is leedahay bishan wuu ku seejinayaa ka ag bedelo. waxaynu ku diyaar garoobaynaa dhowrka cishee hadhay qofkii qallo lagu leeyahay rag iyo dumarba inuu iska bixiyo oo uu u degdego. nebigu wuxuu uhi fadaynu llaahi axaqu an yuqdaa. daynta ilaahay baa ku habboon in loo degdego. markaa dadka qaarkood oo qallo lagu leeyahay dhowrka cishee hadhay waa inay ka gaadhsiiyaan. waxaynu isu diyaarinaynaa sidaynu bisha u raadin lahayn araggeeda. taxari ru'yati hilaali ramadaan almubaarak. oo dowladoon lagu hadlaynin iyo cid kale dee qofkii arki kale awood u lihi uu isagu isxilqaamo bal bishaa inuu eego. waxaa la filayaa habeenka khamiista meelaha
oo bishu ay soddon buuxa tahay waayo jimcada iyadu dee khamiista bishu ku buuxdaa markaa habeenkaa in loo dadaalo khamiista ee bishu ay soddonka tahay ma soddonkii baa dhammaanaya mise ramadaan baa bilanaysa waxyaabaynu ku diyaargaroobayna waxaa ka mid a bishu marka ay bilatay inaynu akhrino ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu tilmaamaya xadiidka tirmidi uu warinaya saxiixa nebigu waxaa rasuulku ahaabay leeyihi saxaabada ridwaanullaahi calayhim markuu bisha arka wuxuu odhanaya allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni waaliimaan waاssalaamati waalislaam wاltawfiiqi lima tuxibu watardaa rabbuna warabuka allah ilaahu bishani ay noogu bilataa nabadgelyo iyo iimaan islaamnimo iyo nabad ilaa iyo adigoona waafajiyo rabbi oo wixii aada jecesheed raalli ka tahy bil yahay rabbigaagu iyo rabbigaygu waa rabbuna allah waa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ducadaa nebigaa la akhriyayaa qiimaha badan bishan waxyaabahaynu ku fikirayno waxaa ka mid ah ama aynu ku dadaalayno inaynaan khilaafin xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa saxiixeynka ku sugan bukhaari iyo muslim inuu nebigu yidhi bishan ha kala horu marina 2 maalmood soomkood ama 1 maalin soomkii adigoo isla ramadaan u dadaal marka 2 cisho u dambeeya biniyati ramadaan looma soomeeyo iyo adigoo ramadaan u dadaalaya rasuulku wuxuu raaciyay ilaa qofkii soo soomi jiray mooyaane qofkii qallo soomaya oo qallo waday ama isniinta iyo khamiisaha iyo soomayay qofkaasi wuu soomi karaa laakiin qof is yidhaahda maalinkaa 30aad iyo maalinka 29aad iyo ramadaan u dadaal sax maaha waa maalin soomkiisa uu xaaraantinimeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaynu isu diyaarinaynaa bashan inayna nadaca jadwalan wa barnaamujan liistiqbaali hada shahr bishan si aynu uga faa'iidaysanno nidaamkaaga waad dhigaysaa adduunyada intaa ka shaqaysa oo wakhtigaa waxbaad baranaysaa wakhtigaa waad cibaadaysanaysaa wakhtigaa qur-aankaada jadwal waa inaad samaysataa noloshaadu ay ka baxdaa wax iska soco un iyo cashwaayadda si aad uga faa'iidaysan karto wakhtiga waxaynu bishan ku dadaalaynaa tajhiiz bacdi aladciya almudlaqa waaddiiniya meelaha qaarkood oo qofku uu aada uga dhibanya ama ummaddu ay aada uga dhiban tahay inuu rabbi berigeeda ilaahay uu barayo subxaana wa tacaala arrimaha inuu xalliyo inuu qofku cayinto oo idhaahdo 5 meelood 10 meelood ducada u badisay salafku samayn jireen oo dhib iyo dheef wixii dhib uu ka cararaya addoonku iyo wixii dheef uu doonayo naftiisa iyo ummadaba inuu markaa calaamadsado waxyaabaha ilaahay aada u barayay subxaana wa tacaala waxaa laga maarmaana bishan iyada ah inaynu isu kaashano ololayaal qaadno waxaa ka mid a taqdiim camal ijtimaaci camal aynu iska kaashano bulshadeenna aynu ku anfacayno inaynu ku dadaallo had iyo jeerna marka shayga la ysku biiriyu bataa oo macno u sameeya dadka sida loo caawin lahaa tabaruc iyo afur loogu samayn lahaa iyo dadka baahan baahidooda sidii wax looga qaban lahaa intaana la iska kaashado rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhu dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka addoommaha anfaca camalladana wuxuu ugu jecel yahay 3 arrimood qof muslimoo laga farxiyo kurbo laga dulqaado dayn laga bixiyo iyo ta afraad oo gaajo laga reebo arrimaha camalladana kuwaasuu ilaahay ugu jecel yahay dadkana kuwaasuu ugu jecel yahay sidaa daraaddeed inaynu noqonno ama ku dadaallo dadku ilaahay jeclaanaya iyo camalkii uu jeclaa aad bay muhiim u tahay waxyaabaha aynu ku dadaalayno waxaa ka mid a silatu raxim qaraabada inaynu xidhiidhino dadka had iyo jeer wakhtigaasa aada la isu eegaa ama in wax la isu faa'iideeyo marka bishan iyada ah dadaalkii loo sameynayay qaraabo xidhiidhinta oo dee cibaada iyaduna ahayde in iyana lagu dadaalo sidoo kale jaarka oo qof waliba dadka jaarka ah ka agdhow waa qaraabadiisii iyana axaadiid badan baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu kaga hadlay jaarkana iyo xaqa ay isku leeyihin siday kuugu kala albaaba dhow yihiin wixii aad u heli karayso inaad iyagana qayb u baasgarayso ood ugu tala gasho waxaynu u dadaalaynaa salaadii shaciirada weyn ahayd calaamooyinka u ahayd bisha ramadaan ee taraawiixda inaynaan ka tegin iyadana aynu ku dadaalo waxaynu ku dadaalaynaa xamlatu lmasaajid masaajidada in ololo lagu qaado haddii ay tahay nadiifintooda iyo qurxintooda
iyo iftiimintooda intaba oo goobtii ilaahay lagu caabudayo iyadoo iftiimayso oo udgoonoo nuuraysa wakhtigani uu soo galo oo aan la dayicin oo istambarkiiya wixii masaajidada u baahnaayeen iyo gogolba dadka ganacsatada iyo maalqabeenku xaafadaha ay ka qayb qaataan iyo tuulooyinka waxaynu ku dadaalaynaa xamla tasyiin shaaric inaynu wadooyinkeena nadiifino nadaafadiina u dadaalo iftiimintiina loo dadaalo oo sida had iyo jeer ayaamaha qaran waxa ay yidhaahdaan ummaduhu dhulka loo iftiimiyo iyo dalka in bisha ramadaan loo iftiimiyo oo dadka cibaadada u soconaya aanay madow dareemin kudaafad dareemin meel walba wixii dhib laga qaado waxaynu ku dadaalaynaa alxamla alelektroniya dadka had iyo jeer isticmaalo agabkan wax lagu baahiyo baraha bulshada waa inaynu ololo qaadna aada u fara badanoo dadka aynu wax ku gaadhsiinayno khayrka xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa nebigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam qof qura inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo geela cascas bay kaaga fiicanta man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili xadiidkii muslimna wuxuu nebigu ku yihi qofka qof khayr tusiya qofkaasi wanaaguu sameeyey in leegunbuu isagana ilaahay siinaya marka waxaad isku daraysaa bahdaada xagga khayrka iyo cidda aada ajriga ka heli karaysa inaad aada u badsato si aad u noqoto dhinaca khayrka nin tol badan ku leh marka qofba inta uu soo hanuuniyo ama uu hagaajiyo ama uu tilmaamo ama qalbigooda ilaahay iyo diintiisa uu soo celiyo ajrigoodu leeyahay marka dhalinyarada waxaynu u sheegaynaa filimada sawirada qaaqaawan waxyaabaha bilaa macnaha intoo iska weydaarataan bisha qofku waa inuu ku xisaabtamaa intee oo xadiid intee oo aayadood intee oo muxaadaro ayaad ama sheer garaynaysaa ama dadka gaadhsiinaysaa taasina waa arrin qofku inuu ku xisaabtamo u baahanoo kayd badan bay u dhigaysa dee markaad boqolaal qof soo hanuuniso ama khayr sabab ugu noqoto ee lagu yidhi intii ay khayrkii sameeyeen in la-eg baad adiguna leedahay wax aada u weyn weeye marka arrintaana aad baynu u baraarujin lahayn waxaanay xidhaysaa meelihii sharka lagu baahin lahaabaa laga xoog badanaya la caabiyaya waxaa ka mid a xamladahaas xamlatu tacaam in afurkaas orana waynu usoo sheegnay lagu talagalo nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wasalam inta qofeed afuriso in adiguna aada leedahay soomka intii ay ka heleen ajrihaa in la-eg xamladaha aynu qaadayna waxaa ka mid ah xamlatu ziyaarati almardaa waalmucawaqiin dadka dhiban baahiyaha gaarka ale cusbitaallada jiifa in iyagana la caawiyo loo gurmado haddii lasoo booqanayo iyo haddii wax loo tarayo iyo haddii laga farxinayo baahiyahooda in loo fiirsado kolba waxay u baahi badan yihiin lagala qayb qaato waxaa jira dad iska naafo ah oo haddana isku dayaya soomkii inay soomaan ha laga caawiyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoogu xusay xadiid saxiixu muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra maalinta qiyaamaha qofka ilaahay su-aalu weydiinaya markuu xisaabinayo wuxuu leeyahy hebelow waan bukoodo imaad soo booqan raashin baan ku weydiistayoo imaad siinin sharaab baan ku weydiistayo cabitaano imaad siinin miyaanad ogeyn markaa addoonkii wuu jawaabaya wuxuu leey ilaahay rabbulcaalamiin baad caalamka oo dhankii iska lahaa sideen kuu soo booqdaa sideen raashin kuu siiya sideen cabitaan kuu siiya adiga cid walba iskala wey markaa wuxuu leeyay miyaanad ogeyn addoonkaygii hebel inuu bukoodo aanad soo booqan miyaanad ogeyn addoonkaygii hebel inuu raashin ku weydiistay ama cabitaan oo aanad siinin haddaad soo booqan lahayd ama cunadaa iyo cabitaankaa siin lahayd arrinkaa agtaydaad maanta ka heli lahayd oo waad u aayi lahayd marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay labaataniyada arrimood ayaynu bishan ku qaabili lahayn markaa waxay u baahan tahay bishani in loo soo jeesto dadkii waxaa loo jeediyey karoone wax la yidhaahdo oo gaaladu halac badan baa hayo oo geerida aad bay uga baqaan oo noloshay aada ugu dadaalaan inagoo asbaabta qaadanayno o isilaalinayno dadaalayna haddana geeridaynu rumaysannahay iyo qadarka siday uga baqaan dee inagu uga baqi mayno wa axrasu nnaasi calaa xayaa noloshan unbay ugu dhantay ku dadaalaan marka dadkiiba meel baa loo jeediyey marka wax rabadaan iyo cibaadadii hadal haya runtii aad bay u yar yihiin sidaa daraaddeed waxaynu ku talagalaynaa bishan sidii aynu uga dhiishaa dhaansan lahayn khayr fara badanna aynu uga heli lahayn biidni illaahi tacaala diyaargarowgaana aynu u samayn lahayn allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء
اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.